imikii haatan war degmada erer waxay dhashay intaasoo degmay dhashay wax haba yaraatee reerka uga soo kordhay isku soo celceliyo maanta waxaa la isugu yimiday intii uu reerku deganaa degmada erari waxay dhashay degmada gablol degmada erari waxay dhashay degmada dhuunyar ee xarunteedu imika tahay casbuliga inta ka shaqeysa war wax reerkan u soo kordhay oo haba yaraatee wax lagu dul sameeyo mooyee la helay ma ay jirto hoggaanka nabadgelyada ee degmadaas Gootabiki shalay dadkii banaanbaxayay ee ka hadlayay dhibaatada haysata iyo dee ilduufka lagu sameeyay iyo dee waxa weeye dulmiga lagu sameeyay inuu intuu yimaado rasaas la dhaco waan wada hadalay aniga madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Ibrahim Cusmaan hase ahaatee in iyadoo lagu wada hadlayo wixii xal loo arko in la sameeyo oo xalku inta ka roonaado maanta in rasaas nool loo adeegsado dadkii ka banaanbaxayay ama ka hadlay arrinta de wax weey waa juuq horan weey in rasaas nool loo dhaco wiil yaro biki ka yimid inuu la dhaco waa arrin aan meesha oolin weey odayaalba maalin dhaweed hadlayo maxay u hadleen maxay sidoo yiraahdeen maxay kale u yiraahdeen waa la hadli waxa weeye xaqara waa la iftiimin war waxa weeye sida wax u socdaan war Cabdi Jibriil baan ka soo harnay oo aadan faarax baan u dul qaadanay oo Ibrahim Cusmaan oo kana maanta wuxuu sameynayaan arkaynaa war waxa weeye mas'uuliyiintaasi iyo dadkaasi waxa weeye Mustafa Cagjarow madaxweynihii deegaanka war xaq daradii ugu weynayd baa dadka lagu hayaa maalinkii diri dhabana laga kaxaynayay ee la geynayay goday haba noqotay jigjiga loo soo noqday labada wasiir saddexda wasiir ee lahayn ilaa ay hadda Soomaali cid qabatay ma jirto diri dhab maalinkii la lahaa halkan naga rar Itoobiya naga soo galaysa halkan la lahaa goday la geeyay adeer maalintaas kuraastii ugu qaalisanaa ugu muhiimsanaa aan deegaanka Soomaalida ka qabanay waxa kamid ah hoggaanka nabadgelyada waxa kamid ah maaliyadda waxa kamid ah hanti dhowrka guud ee deegaanka maanta matala la'aan iyo xageeba degtaa iyo yaa tahay war Soomaaliyay iska daa inaan dariskayga u cararno ama aan meel kale u waxaysnee mid aanan diin iyo diir midna wadaagin hadaan u galno waradeer dantaana tiri waxa weeye cadaalad darro tii ugu darreyd horta ka taagan meeshaas war Soomaaliya isguumaysan mayna adeer tani waa gunnimo isguumaysan mayno nin waliba waxa weeye dantiisu halka ay ku jirtay oo ka raadsanayo ayuu galaya oo ka raadsanaya hadii arrintaas degdeg loo xallin waayo oo xal laga keeni waayo tee waxa weeye halkay mudatay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo halkay mudato ay adeer noqon doontaa waxaanan ka shaqeynin oo aanan waxba ku lahayn horaan u niri haddaan dantayda ka waayo deegaanka Soomaalida iyo jigjiga adeer maxaa mancinaya inaan adaami iyo oromo meel joogto kar annagu adeer iska daa waxa sheey kuwaas ku aanan diir iyo dub midna wadaagin haddaan ka raadsano wax mancinaya ma jiro haddii sidan ay maanta tahay ku sii socoto waji kala yeelan doontaa war dawladda deegaanka Soomaalida ka dhisan cadaalad darrada waxa weeye ka taagan